sheegay qardhaa ku arkay koodhe aragtidii ugu horreysay horta si fiican yacni waa yarareen qardhaa ku arkay iskuulka isla dhigan jirin saa iskuguma dheeraan jirin ma fahanta laakiin qardho baa xariifkaanu intuu cayilada ana waa soo xagaa baxnaa booso soo ma ogid booso kuleyl waay waa laga xagaa baxaa xagaaga xariifkaanoo malaha caano laga dharjiyey oo ku yidhahda kala baxay oo labiska la labisan yahay saabuundada casarkii lasoo aadaa reer qardhoodka way yaqaanaan xariifkaan waxaa arkay saa iska siinaya madaxa saa ka siinay intaa istaagay baa saa u fiiriyey wallaahi been baa u haysataa intaa istaagaa saa u fiiriyey saa u fiiriyey waa iskaga sii jeestay bes kadib mar dambeetana mataqaanaa magaalada isku aragnay haddana dhalinyaro asxaab la ahay buu soo dhex gala boosaaso uu si fiican ugu soo dardarsaday lacag baa isku soo raacnay lacag markaa isku soo raacnay baa xariifkan dee waa dabaalanayna ma fahantay baanbaadii baa wax israfanaysa naag bad boosaaso badda wixii yaqaana badduna waatan xaafadayadina waatan ma fahantay dabaal cid igama badiso nacag biyo ku rafanaysaa iska dhigay waday maxaa kugu dhacay ilaa waa mid raaraadinaya miyaa oga kaaro kugu daftay maxaa kugu dhacay maqrib baa xaafadda nimaanay waana la soo kaxeeyey gaarigaana lagu soo kaxeeyey baskii aa saarneen dhalinyarteenna xaafadda anaa lay horkeena anaa xanuusnaa gurigaa imaanay guriga markaan imaanay buu dhalinyarti ka haray xaafaduu degan yahayna yaaqoonka boosaaso afkeedaa deganaa afkeeda kaluu isagana degan yahay waa xaafaddu waa halkeeda reeatigiis xaafadda hursangeliga degaan buu degaa waa xaafadaan la gelin ayadana habeenkii gabalku hadduu dhaco baan ku yidhi la gaaro 10 la gaaro baan ku yidhi lama galo naa way ag fariistay halkee lagaa hayaa ma fiicanta waa fiicanahay la ilaahayo adigaa meesha soo fariisiye baa leeyahay goorma caafimaad ilaahay baa saa iigu soo degay waa sheekaysana waa xaraabaysanay lambarkii baa kala qoranay xaafadda walaalahay baa ka haysta xaafaddii baa ka saarnay gabadh dhammaydoo xanuusnaydoo la keenay meeday kuwa walaalahayaa waxa kaale wiilkana xaafadda ka saaraynaa geynaynaa ilaa iyo suweyta waa ka saaray xaafaddii laamigii oo mataqa magaaladaa sii dhexgeynay naade kaagama sheekayn karo habeenkii oo dhan baa taleefon saa dhegta uga hayay waagu markuu qac yidhaahday baa taleefonka baa ku yidhi saa u jaray aroortina iskuulka isku aragnay hooyadii $1 ay soo siisay baa ka matajiyey dee xamar jalaato bajii bur u halantahay kadibna sidii baa isku rakaabsana taariikhda dambe kama sii sheekayn kara ilaah baa taas noo break nooga qabo walaw jecel yaraana caadayna macaan badan soo maray naama waalan tahay anoo saa u soo taagan weliga adoo saa u soo taagan sida adoo alla yadaa soo xasuusinin la baayo weliga habeen jugma ku sii xisaabtanta gabaray dhagayso adoo og in lagu qaraacayo oo lagu dilayo feeraha dhig lagu dhigayo shukaansi maqribkii ma u baxday fiidkii maya aniga aabay ma ka kaftamo waxa sabay ma bixi jirin naa wallaahi maqribkii shukaansi baa u baxaya feeraha dhig la iisii dhigaya feeraha waa 8 maqrib hooyaday farmasiga waxay ka imaan jirtay 8 kowdhe war hooyo qofkii lugti ka dambaysa waa la garaaci jiray feeraha dhig la ii dhigi jiray feeraha ilaah baa ku dhaartay oo ku sii xisaabtami jiray jugta diyaar bay iisii ahaan jirtay diyaar maxaan u bixi jirnaa kuu sheegayaa aabba ilmihiis maxay tahay hooyo lama joogin aabba la joogo ma fahantay naani hooyaa la joogay hooyaday baa anagana korsatay baayay gacalisoy habeenkii dambe hooyo way korisay laakiin ana xoogaa xag Kismaayo ku qaangaaraani marka gabadh aabba qabo shaqo aadi jirta aabbana shaqo aadi jira marka aabba dukaan weyn u lahaa guul wada degan anag dadku inay yaqaan xajaamic Cabdullaahi Shimir laba dhexdooda meel dhaha degan marka aabba dukaanka aabbe iyo guriga waxa u dhaxaysa waxa noo dhaxaysay guriga maamo oo macaasho ada 3 guri camalan 2 guri noo dhaxaysa istaqbal dukaanka aabbe iyo 2 guri oo dhaxaysa marka aan ilmo yar ahaayno ilmo yariis aabbo u dhalay ahay marka madrasada markaan ka imaado iskoolka guriga kama bixi jirin waa ilmahaas ahaayeen gabar yar umul ku jirta xadaa jirtay umusha markaas intee ka baxda ana hayn jiray ilmaha ana hayn jiray ilmaha dhan hayn jiray cuntada yaa karin jiray guriga hagaajin jiray
ilmihii iskoolay aadi jiray wax cid dhan u wax kala la ii dirdir dirsan jirin ani cid wax wallaahi bilaahi tallaahi wax karis waxaa ku bartay jarmal iyo talyaani haddaa ilaahay taqaanid weli cidna wax iima dirsan jirin ani cidna wax ma ii dirsan jirin soo fariisan waa layga kari weyn jiray saasaa wareegi jiray laabta anaa dhaqi jiray ilmaha anaa hayn jiray wallaahi dadka yaqaan guriga dhan anaa hayn jiray xataa ma arkino aabbo cuntadiisa anaa ka warqabi jiray aabbe haddaa kismaayo tago cuntada ugu horreysa anaa u kariya naayaana waar kugu daalinine habeen baa waa la ii fiirsaday dee luuqa gurigaa la istaagay hu'daydii habeen ani waa kusii xisaabtamaa markaa shukaansi aadaya in caawo kale feeraha dhiig lay dhigay lay dilayo laysoo wacay jugtu waa maxay dee adeer gacaliye habeen walba oo caawa keliya iigu horreysaa arkaye adeer jugtu waa laazim habeenkaa shukaansi soo aada waa la ii dhigaa feeraha dhiig macnaha soo xasuusin jug ilaahay baa ku dhaartay xataa baan ku yidhaahday anoo banaanka alla ilaahayo wadankiiba alla wadan gabdhihiina hadeerna diyaaradayba tigid bayba goosanayaan waa iska baxayaan maxay taha abaayoy hay kismaayo ma arkino kismaayo tuuga miiran waay mogta haddaani markaa ogaa kismaayo tuugaasaan ka ahayd tuugaa ka buuxday marka tuug muxuu sameeyay aan tuug ka baqi jiray habeenka tuug mar habeen hadii la gaaran waa bacabsan jiray halkeen marka habeenka telefoon caawa shalay la ii soo gada caawa kala duu tuug iga qaatay oo ilaahba ishaydii baa ku dhacday xoogaa kadib ciyaalka xaafadda iiga soo qaaday wax saa inta u fiiriyay baa iri alla ilaahayow teleefonkaygi rabbiyow hadde waxaa laygu gaday waa teleefonka ugu horreeyo laysiiyey anoo banaanka saa iridka ula taagan waa chinese buu ahaa waa xusuustaa iskriinka weynaa dhim ka siinaya buu daf iga siiyey waa habaaray xoogaa yar kadib isagoo la ii wadaa